madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu dhex dabaalanaya dhiiqa siyaasadeed oo ah mid diblomaasiyadeed taasi oo ah dagaalka u dhaxeeya wadamada Masar iyo Itoobiya kuwaasi oo haatan la filayo in tii ugu dareed ay dhacdo kadib marka webiga Niil dowladda Itoobiya ay xarag jarto. Itoobiya ayaa waxay ku soo aadisay webigan xarag jarkiisa shirka wadamada Afrika ee ka dhacaya Addis Ababa waxayna ka doonaysaa dhammaan wadamada Afrika madaxdooda inay ka qayb galaan shirkaasi. xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid noqday madaxda aqbashay inuu ka qayb galo xargajarka arintaasi. dowladda Masar ayaana ah mid aad uga soo horjeeda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Masar in badan taageertay waxaana ugu weynaa kadib markii Itoobiya ay badda Soomaaliya soo damaacisay taas oo Masar u dagaalantay sida ay inay leedahay badda Soomaaliya. Masar ayaa Soomaaliya waxa ay ka sugaysay in amaalkaasi ay u soo celiso isla markaana dagaalka siyaasadeed ay kula jirto wadanka dariska la ah Itoobiya gaar ahaan webiga Niil oo nolosha dadka Masar inta badan ay ku tiirsan tahay in Soomaaliya ay garabkeeda ka aragto maadaama waqtigii badeeda laga hadlayay ay iyadu garab u ahayd oo wadamada Carabta iyo iskaashiga Islaamkaba waqti dheer ku bixisay sidii ay u taageeri lahaayeen Soomaaliya. siyaasiyiinta Soomaalida ugu horeeya Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa arintan aad uga walacsan waxayna sheegayaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulkiisa uu ku haftay arintan isla markaana uusan madaxweynuhu la tashan dadka siyaasiyiinta diblomaasiyiinta ee arrimahan aad ku dhuun dalaala kuwaasi oo Xasan Sheekh Maxamuud siin lahaa talo aad wanaagsan. qoraal uu bartiisa Facebook ku soo qoray Cabdiraxmaan Cabdishakuur siyaasiga caanka ah ee arrimaha siyaasadda Soomaaliya aad u dhaliila ayaa waxa uu yiri maalin aan dheereen wafdiga dalal Suudaan iyo Imaaraad ka socda ayaa madaxweynaha laba maalin oo isku xigta uu qaabilay. maantana waxa uu bartanka ka taagan yahay loolanka Masar iyo Itoobiya ka qaybgalka xafladda furitaanka biyo xireenka Itoobiya ee madaxweynaha bari u qorsheysan inuu tago. Masar waxay u aragtaa halis amni qaran arintaasi waxayna u haysataa inay Soomaaliya ku abaal dhacday maadaama ay si weyn ugu garab istaagtay xilligii ay Itoobiya soo damaacisay badda Soomaaliya ay sugaysana Masar haatan loo abaal celiyo. Soomaaliya waxaa horyaala kala doorasho adag diblomaasiyaduna waa istiraatiijiyad ay dowladdu awoodeeda isaga aadiso iyadoo oo ku xisaabtamaysa waqtiga iyo masaxada ay haysato si ay uga baxsato imtixaanka tijaabada ah taas oo maanta horyaala tabarteedana lagu fiirinayo. taasi macnaheedu ma ahan inaad isdhiibto mana ahan in aad harqabow harsanayso. waxaa laga maarmaan ah inaad la timaado xeelad iyo istiraatiijiyad xirfad aqoon iyo waayo aragnimo ku dhisan si dalkaaga aad uga badbaadiso cadaadiska iyo loolanka dowladaha danahooda ay isdiidan yihiin ee adigana saaxiibka kula ah. ayaan darasa waxa ay tahay in siyaasadii arrimaha dibadda iyo jaangooynta danaha amniga qaranka oo madaxweynuhu keligii jeebka ku sito. waxaa taas caddeyn u ah in wasaaradda talisyada ciidanka iyo hay-adaha sirdoonka iyo difaaca gudiyada labada aqal ee baarlamaanka aysan wax talo ah ku lahayn siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya mana jirto waayo aragnimo khuburo iyo sidoo kale aqoon-yahano wax laga weydiiyo arintaasi. wafdi ka socda dalalka ayaa waxa ay yimaadeen Soomaaliya heerka ay doonaan ha ahaadeen madaxweynaha ayaa qaabila. waxaa caado u ah in marka uu kulanku gabagaba yahay in wasiirada iyo taliyaasha sirdoonka dibadda loo saaro waxaana dhacday in agaasimaha sirdoonka iyo wasiirka arrimaha dibadda laga saaro kulamo uu madaxweynuhu la qaadanayo rag dhigooda ah ama ka darajo hooseeya. tiro ma lahan safiirada laga reebay kulamo uu madaxweynuhu la yeelanayo dalalka ay danjirayaasha ka yihiin. su-aashu waxa ay tahay keligii ma isku keeni karaa inuu qeexo hadafka siyaasadda arrimaha dibadda dejinta istiraatiijiyadda iyo qorshihii howleedka ee dalka laga rabo iyo sidoo kale xirfadaha iyo kartidii laga baahnaa in lagu maareeyo arrimahaasi. waa maya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arintaasi ma wada qaban karo ayuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa. maantana waxaan dhex taaganahay tii ugu dareed oo ah fadeexad diblomaasiyadeed.